habeen madow inaan rabo inaan sheego qofka aan ahay runta ah dabeedna qofkii familkayga close-ka ahaa ee aan ugu jeclaa familkayga oo markasta wada hadli jirnay markasta wada sheekaysan jirnay markasta iswici jirnay ayaan arrinteeda u sheegay qof Soomaaliya jooga oo ku dhow oo ku jecel oo kugu kalsoon oo iskula ka han weyn oo kor ku eegaya oo ku arkaya inaad tahay qof caqli badan oo wax samayn kara oo wax la soo bixi kara oo karti leh oo familkaaga markuu arrintaas maqlo maxaad malaynaysaa inuu sidee u dareemaya u malaynaysaa inuu maxay dareemaya u malaynaysaa so arrintu saas bay noqotay kadib waan wada hadalnay waqti dheer baan wada doodaynay anoo rabin inaan dhex galo waqti dheer baan wada hadlaynay labadeenoo kaliya cid kale ogeyn discussion badan baa socday xagga diintaan isla qabanay xagga salaadaan isla qabanay xagga culimadaan isla qabanay xagga daweynta diintaan isla qabanay meelo badan baan isla soo marnay kadibna waxaan go'aansaday aan u sheegay anu ma soo noqon rabo never ever ma soo noqon rabo anu waa isku dayay inaan bedelo qofkaan ahay waa bedeli kari waayey sababtaan usoo dhoofina sababtaas bay ahayd go-aankaasna waa qaatay ma soo laabanayo haddaan isku dayo inaan marna sii socdo marna soo socdo waa ku waalanayaa sanadaan soo ordayey mar raba inaan dib ugu laabto halkii aan kasoo orday aan kasoo rafaaday inaan dib ugu laabto taas anay dilaysaa qof kale ma dilayso anay dilaysaa anay kowi ka siinaysaa so I don't want that qofkii familkayga waa wada hadalnay waxa go-aan laygula gaadhay inaan ashuuntaa ku addimo bal horta wixii kaleba ha joogaane qof Soomaali yuu ku arkin qof Soomaali ninka cad yuu arkin qof Soomaali yuu ku maqlin qof Soomaali meel aad marayso yuu ku arkin qof Soomaali waxaad qofkaad la saaxiibta yuu ku ogaanin xorriyaddan baase abeewastada xagee taalla haddaba ana taas baa markaa isweydiiyay xorriyaddan baase u soo guuray 1000 mayl xagee where's that xorriyaddan xagee taallaa markaa intaad Yurub timaadid aad Soomaali ka dhuumatid aad ka soo guurtid waddankaagii aad familkaaga ka soo guurtid aad ehelkaaga ka soo guurtid aad dadkii ku jeclaa ka soo guurtid aad meel walba ka soo guurtid haddana lagu yidhaahdo hus afkaaga wax xidhnaado nobody knows you who you are how's that ballantaa waan jabiyey haddana mar labaad ballantaa waan jabiyey sababtaan u jabiyey asxaab meedii sheegaa iyo dhegaystayaalow nafteeda darteed baan u jabiyey